farxad weyn oo ah maanta oo ah maalintii labaad ee aynu u fadhinay qorshaha 2022 inaynu soo saarno inay si wanaagsan inoogu soo gabagabowday cid kasta oo ka qayb qaadatay diyaarinta kulankeenan aynu kula faguraynay ama aynu ku soo bandhigaynay qorshihii 2022 wasaaradda wixii u qabsoomay iyo diyaarinta qorshaha 2022 ba kaagaasima guud ahaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qof kasta oo fikir wanaagsan soo jeediyay qof su'aalna weydiiyay oo looga jawaabay iyo cid tala soo jeedin lahayd ba dhamaantiin waxaan idin leeyahay waajibkii qaranku inagu lahaa baynu gudanaynay laakiin haddana ka agaasimo guud ahaan anigoo ku hadlaya qaybta farsamada ee wasaaradda waan idinka mahadcelinayaa waxa kale oo idinka mahadcelinayaa samirka quruxda badan ee inaga muuqday walow aynu soo fogaanay haddana waxaan arkay inaan dhaqdhaqaaq badan jirin xagga shirka qorshaha maanta halka aynu ku soo bandhignay waxaan jecelahay cidii ku shaqeynayd waa idinka waxa la qoro hadii dee la daayo wuxuu noqdaa xibrun cala alwaraq kuwii ku shaqeeya ee sanadka dambe dhamaadkiisa aynu iskugu nimaadnay inagoo inta badan fulinayna inaynu noqono wasiirka wasaaradana waxaan uga mahadcelinayaa ballanqaadyadii shalay uu halkan ka fuliyay ee ka sheegay inay dad badan oo is ogeynaysaa ka ayideen dhalinyartan waxaan leeyahay hamigiina kor u soo qaada wasiirka dad badan oo lamid ah muxsiniinna way jiraan aynu ka warhayno dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamay labadii maalmood caasimada ka soo baxnay hurdaalka nimi inaga ujeedadeenu ay tahay inaynu si mug iyo miisaan leh uga bogano sanadkeenu soo dhaafnay 2022 wixii inoo qabsoomay iyo wixii inaga qabyo noqday inaynu ogaano si aynu u qabyo tiro wixii inaga qabyo ahaa iyo si aynu sanadka soo socdo haddii Ilaahay ka dhigo qorshaha aynu samaysanay iyo waajibaadka aynu kala qaadano waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaybta ama commissionka law reform commission oo inagala joogo maanta professorku iyo Yusuf oo isna shalay la joogay sidoo kale waxaan runtii u mahadcelinayaa dhammaan agaasima waaxidada madax qaybada isduwayaasha magaalooyinka ama maxaa dhahay gobolada fogfog ka soo safray dhammaan howlwadeenada halkan isugu yimi qayb kasto ay joogaanba saxaafadda waxaan qabaa inay la taliyaashu ahaayeen buddig iyaguna waxa weeyaan runtii aynu halkan ku soo gaadhnay waxaan rajaynayaa runtii inaynu u qaadano shaqadan aynu qabanayno mid waajib inagu ah qofka muslimka ah waxa loo baahan yahay wixii uu ka shaqeynayo wuxuu kaga helayaa Ilaahay ajar badan buu kaga helayaa hadii uu niyadiisa wanaajiyo oo uu qaato wax kasta amal kasta oo qabanayo oo qarankan u qabanayo inuu Ilaahay dartii u qabanayo marka laga reebo manfaca yar ee kooban ee uu ka helo xagaasay runtii ugu midho badan tahay xagaasay ugu manfac badan tahay waayo waxaynu ognahay inagoo ku xisaabtamayna awoodda uu qarankeenu leeyahay shaqaaluhu mushaarka uu qaataa waxa weeyaan ma aha mid runtii baahiyihiisa ku filan mid ku dhowna ma aha sidaa daraadeed xilkasnimo iyo dadnimo iyo dal jacayl waxa weeyaan ayuunba hawshan halkan ay ku soo gaarsiiseen haddana ahankiina iyo halka ay hiigsanaysaa ku gaari kartaan inaguna hoggaan baynu nahay tusaale maadaama aynu u gimanahay dastuurkii qarankani uu lahaa iyo shuruucda inaynu ka midho dhalino muuqaal maxaa dhahay muuqdana u noqono bulshada inteeda kale runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa habka aad u wada shaqaynaysaan iyo wada jirkii deebidnimadina waana takaliya ee aynu ku midho dhalin karo waxa maskaxdeena iyo muruqeena ku jira waxaanu ognahay iminka wasaaraddu iyadoo runtii ay ballaaratay inaynu 3 section oo aad muddo 3 section oo waaweyn aynu leenahay oo iskaashigoodu oo qarankan iyo wasaaradda wax badan u qaban karo guud ahaan haddii aan wasaaradda qayb ka dhigo iyo qaybta law reform commission iyo santarka aynu aasaasnay oo isaguna runtii waxa weeyaan mustaqbal aad iyo aad u muhiim ah oo ka soo socdo maxaa yeelay sidaynu ognahay
santarku ilaa 25,000 oo qof buu gaadhay oo sanadkii aynu soo dhaafnay ka shaqayseen wuxuu iminka waxa weeyaan daatadeena ku jira dadaan 100,000 ka yarayn si lagu gaaraa ma jirto waxyaabaha aan runtii aad iyo aad waayeelka ama professorada aweydiye waxa kamid ahaa sideeday dhali ardaydu jaamacadaha ku jira ee dugsiyada sare sideeday u imanayaan santarka maxaa ku kalifaya halka shahaadooyinkii jaamacadaha laga qaadan jiray maaha mushahar laguma bixinayo manfac kale ma yaalo aqoon baa loogu deeqayaa aqoontaas dastuurka iyo xeerarka shuruucda ka farxantay iyo wadaniyada ayaynu ugu talagalay sideebay u ekaan doontaa runtii waxa ka soo baxaysa ogtihiin in aynu iminka u weynay inagii weel iyo meel aynu maxaa dhahay runtii aynu wax ku baro kadib markii ay ka bateen dalabka iyo dawladuna aad iyo aad u badan tahay taa waxaanu aynu muujisay guud ahaanba qarankeenu inay dadkeenu u baahan yihiin baahina u qabaan inay shuruucdooda iyo dalkooda iyo dastuurkooda iyo diintoodaba ay bartaan inay diyaar yihiin halka markaa waajib baa inaga fuulay inaynu wixii aynu u igmanayn runtii haraad loo qabo waxaan qabaa kuwa ka haraad tirayana inay idinka tihiin maxaa yeelay waxa weeyaan waxa tiin dhamaantiin aqoon-yahan waxa qaadateen tababaro wanaagsan tallaabo weyn baa runtii qaadi kartaan taynu ka soo qaadnayna runtii waa garanaysaan marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo aan idinku hambalyeynaya hankiina iyo wada shaqayntiina iyo aqoontiina iyo ku talagalkiina iyo dadaalkiina inuu yahay kan aynu maxaa dhahay magaca aynu ku yeelanay kan waajibkeennii wax kamida ku gudanay inaga oo ujeedada ugu dambaysa oo ay tahay inaynu ilaahayna raali gelino dalkeena iyo dadkeena wixii aynu u qaban karno aynu u qabano si hagarlaana sidaa daraadeed waxaynu maanta halkan ku soo gabagabaysanayna oo ku gabagabaynayna labadii maalmood ee qorshaha ballaaran aynu ku falanqeynaynay waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inaynu sanadka dambe nabad qab ku gaari doono oo halkan iyo meel ka fiican isugu iman doono waxaan runtii tacsiyadaynayaa inanta ilaahay hor naxariistay maanta geeriyootay in ilaahay jannatul firdawsa ka waraabiyo eelkii iyo qaranka iyo wasaaradda wayna ilaahay sabr iyo iimaan uu ka siiyo shirku sidaas uu inoogu xiran yahay qada wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.